بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. mar labaad baan u soo laabtay si aan u saxo systemka. Waxaan doonayaa dhammaan inaan salaamo dadka i daawanayo meel kasta horta adduunka ka joogtaa. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago maanse yar oo la yidhaahdo horta adigu yaa tahay. Waa laba jir maansadan oo 2020 bay soo baxday, ama waa 3 jir bay kusii socotaa. Wuxun baanay markaa ka tarjumaysay ama ay ka hadlaysay sida ay ismaandhaafku uga dhex jiro dadka Soomaalida ah iyo ishaybsigooda iyo iswaraysigooda. Dadku markii hore ay baadiyaha iyo deganaayeen sida beelbeel deganaayeen amaba reer deganaayeen, waxaa ugu muhiimsanaa marka qofku qof kala baranayo inuu u sheego qolada uu yahay. markii magaalooyinkii la yimi, adduunkii kala la dhex galay, waxba isbedelay. dadku waxay reer magaaloodu waxay rabaan in lagu barto ama magaalo hirlaayi ama calanka iyo qaranka uu markaa hoos joogo, amaba aqoonta uu leeyahay, amaba fikirka iyo mabda'a uu xambaarsan yahay, amaba xirfadda uu ku shaqeeyo. waxaa in lagu barto ay dadka qaarkood doonayaan inay dadka usoo bandhigaan. laakiin xaqiiqadu weli dadka badankoodu waxaasoo dhan waxaa uga muhiimsan inay ogaadaan qofkani haybta uu yahay. taasaa ugu muhiimsan. adduunka kale waxaa muhiima qof markaad gacan qaado saa u salaamto, waxa ugu muhiimsan waa magaciisa. magacay waa hebel hebel ayaa la yidhahdaa. marka arrintaasi markii Soomaalidu Yurub ay timi, Yurub ka noqotay, ayaa waxaa la yidhi nin baa magaalada gaalkacay tegey, aroos buu ahaayoo guursaday. dabadeedna dhaqankii uu kala tegay meelahan Scandinavianka Yurubta ayaa marka aad qof kasta u salaamto magacaaga raacinaysa. markaasaad salaamu calaykum wuxuu gacanta saan kuu geliyey, waxaad odhanaysaa hebel hebel ayaan hebel hebel. markaa ninkii arooska ahaa, qof kasta dadku adiga arooskana aad baa loo salaamaya dabcan, oo la imanaya gacanta la geliya. marka gacanta la geliyo in magaciisa sheega. marka waxay yidhaahdeen muxuu ninkan isnaadinaya inanta inaga guursaday, nin isnaadinaya inanta inaga guursaday. xaqiiqadu waxa weeye muhiimba ma aha magacaaga, waxaa muhiima dhaqanka Soomaalida, qabiilkaaga muhiima, iyo wax noocaas oo kale. marka sheekadan waxaan ka mataalayay arrinta noocaas oo kale ah. laba qof oo kulmaya oo doonaya inay iswareystaan. marka qofna waa qof maaragtay adduun soo arkay, doonaya in lagu ilbaxa, oo doonaya in lagu barto maaragtay wuxuu yahay ee kale. qofkan wax wareysanayaan wuxuu doonaya qofkan inuu ogaado haybtiisa. arrintii marka waqtigaa hore aan saas u alifay ama ka mataalay, ayaan dhowaan aniga oo maasadii oo dhammaystiran aan sii daayey, ayaa haddana waxa weegan soo baxday dad salaadiina oo salaadiin waaweyna oo dhinacan ka tegay Somaliland oo tegay Sacuudiga, isla markaana halkaa kaga dhawaaqay inay yihiin haashimiyiin, isla markaana shahaadadii haashiminimada. haashimigu waxa weeyaan nebiga qabiilkiisii Quraysh laftii ka mid ahayd reer bani haashim. dabadeedna waxaan jeclaystay inaan dib idinla wadaago isla maansadaas oo aan aad u sharxi doonin, laakiin aan idin akhriyayo oo laga yaabo sheekooyinka ku jira wax ka mida inay aad u dabaqaan waxa odayaashaasi ay ka hadlayaan. waxa weeyaan asalka qofku cidda uu ka soo jeedo, horta cidduu sheegto waxba lagalama murmo oo ciddaasaan ahay dee waa loo daayay. laakiinse hadduu qofku cido badan sheegto, amaba dadku ay cido badan sheegtaan, waa iyagana in la sheego. tusaalehaan haddii dadka qaar yidhahdaan waxaan nahay bani haashim oo waxaanu galnaa xasan iyo xuseen iyo nebigaan halkaa ka galnaa, okay, sax, waa caadidee, waayo wax caddayna ma hayno oo odhan kara waa beentiina arrintaas. haddii ay laakiin qaar kalena ay aaminsan yihiin inay isla dadkani ay iyaguna dir galaan, mahadir yihiin halka ay galaan, iyaga waxaad ku diidaa ma jirto ilaa caddayn kale oo aad iyadana keento. labada fikradoodna maaha laba fikradood oo sanadkan dhashay, waa fikrado laga soo dooday
وقرني هراء برتن كيسي أما غير كيسي هراء أي فوفكني صوب حي بني هاشم كيو يرد اللي هي لبض ضدنا مركوي ترين ولا جبيه ولا جه الصي ولا اسكو خلافه ولا كتار كذور اللي هي مركو أهل تجربوها لكن هذا مشروع أهم وحدي بصوص أسبوعنا ذي سنة ضمن ده لو ذكرت السنة قدام بيه ولما لو سيبوا صوص أسبوعنا ذي ودنا سياسة دي شركة عرفتي شركة ريو تود بمصر لو قبتي أي واحد كان إن 4.5 Soomaalida Soomaalida federaalka ay dadka Soomaalida ay u qaybiyeen hab qabaa'il arrintaas oo ay u arkeen marka Soomaalida waqooyi gaar ahaan beesha saaqo inay ku tahay qadiyadooda dhan ay doonayaan iyo wuxuuda in mid lagu dhabar jibinayo inuu yahay oo iyaga oo marka maaragtay soo arkayeen qabiil weyn oo madax bannaan aynkaas in oo haddana hogaaminaya dowlad in inta laga qaaday liid laga soo qaaday hal qabiil oo qabaa'il badan meesha degan ka mid ah isla markaana ka mid ah afarta qabiil oo waaweyn ee Soomaalida haaf ka mid ay yihiin wax noocaas oo kale arrintaas marka dhibaato xoog leh keentay 10 sano ka bacdi waxa soo baxay buugaag ilaa 2 buug oo la sheegay inuu maartay sheekhay la soo dib borka looga jafay doon hore u jirtay oo macruuf ahayd oo ahayd annagu dee Soomaalida horta dee waxaan ka nigi Maxamed baan galaayo bani Hashim baaban oo nahayba dir iyo dadka aan ugu darteen min dabadeedna boorka soo baxday tiibay sheekada marka caadi daba socota maxaa ka jirin taas waxa weeyaan waa arrin doodeeda iska laho u baahan si cilmi looga doodo xaqiiqadu waxa weeyaan waynu aragnaa hadda waxaan arkay oo aan caadi u garanayaa dad laba fac oo keliya Sacuudiga ka soo jeeda oo qiyaastii qarnigii ka yimi awgood ka yimi laakiin markii uu dhowr islaamada Soomaaliya guursaday sida aan u eekahay ayaa u wada eegyihiin dadkooda waa dad ashraafa oo ka yimi halkaas oo suurtagal marka qof ka yimaada Sacuudiga inuu gabdho ka guursado halkan oo uu carruur ku dhalo carruurtiisuna ay midabkii iyo afkii iyo dhaqankii dadka kale ay qaadato waa suurtagal wax dhici kara wey laakiin se mid baan marna suurtagal ahayn Soomaalida dhan maaragtay malaayiinta ah dhammaantood saasoo kale qisa noocan oo kale ay wada haystaan oo ah inay mararka ka mida uu aabahood yimi oo asal ay kasoo jeedaan bahil caalam dabadeedna ay sidaa ku noqdeen marka hal qabiil waan rumaysan karnaa dad yar waan rumaysan karnaa laakiin Soomaalida oo dhan inay sheegato suurtagal ma saas daraaddeed shaki bay sheekada dhan yeelanaysa taas marka waa arrin u baahan baaritaan mideeda kale wax qiimo ama leh runta haddii reer hebel laga soo jeedo laakiin waxaa muhiim inka maxaa leeyahay waxaa leeyahay cidad afkaaga hooye asalka ah iyo midabkaaga iyo deegaankaaga iyo dhaqankaaga ciduu yahay un baa tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa carab laakiinse awowgii ibraahim mu ahayn carab ismaaciil mu ahayn laakiin ismaaciil hooyadii xataa ma ahayn carab masar bay ka timi dadka kushatiga aynay ahayd baa laga yaabaa oo haajira ismaaciil wuxuu ka yimi baabil inuu cid kale ahaa ama armenia ama kurdi ama cid ahaa baa laga yaabaa kala meelaha ummadii degi jiray berigaas laakiin waxay degeen maka dabeedna dadkii deganaa bay la mid noqdeen ka guursadeen dabeedna waxay noqdeen carab weligii nabi maxamed ma odhan baabili baan ahay iyo nuubi baan ahay toona ma odhan laakiin carab baan ahay maxaa carab ka dhigayay dee waa carab waayo afkiisa iyo luqadiisa iyo dhaqankiisa iyo awoyaashiisa iyo wixiisu dhimo waa caynkaas marka haddii meel laga soo farcamayo ilaa nebi aadam baynu kasoo wada farcamay markaas biniaadamku ay kasoo farcameen marka macno ma samaynayso runtii in oday la galay inaan la gelin laakiin doodaas ah inay dadka qaarkood reer bani hashim yihiin qaar caqiil gala iyo qaar xasan gala waxaa garab socoto dood kaloo ah tusaale ahaan reer waqooyiga isaaq oo kale in ay yihiin bir taasi suugaantii Soomaalida hore oo ka horreysay doodan aad uga horreysay doodan bani hashimka ay aad uga buuxdaa
oo maaragtay ii doordir weeye hadduu duulan soo kiciyo dunja habar magaadluhu hadduu dabarka soo goosto dunduqiyo rasaastii hadduu dabacsamuu siiyo horta yeela daaweynaya dowyada fadhiya waa qamaan bulxan buu ahaa ninkii gabaygaas lahaa sid maxaa cabdillah xasan qudiso waxaa kii lahaa in aan mariyey ii door allow mahadir yow sheeg mahadirna waxa weeyaan dirka ayaa waxaa layidhi wuxuu dhalay waa sheeka xariirta soomaalida 104 qof buu dhalay boqolkii afrikaanka kale kala noqdeen iyo ummadaha kale laakiin afartii baa weli soomaali ah afarta marka waa mahadir iyo madoobadir iyo madaxweyne dir iyo madaluug afartaas weeye marka sayidku wuxuu aaminsan yahay in uu isaaq ama idoor ay galaan mahadir waana sida ay dad badan aaminsan yihiin waa laba doodooda marka iskarab yaala manfac weyn oo saas sama yeelanayso xagga aakhiro iyo xagga adduunka midna meesha aad gashaa meel maad gashaa kulliba midda kale dooda ku jirta haashimiga qisas kale ku dhex jira iyagana oo ah xoogay suufisama xoogay tashayuca oo shiica atirsiintan marka laynoo akhriyay 12 oday firqadan la yidhaahdo 12 ee iiraan xukunta shiicada ah 12 imaam bay aaminsan yihiin 12 imaamba halkanay liis atirsiinta hadda halkan lagu sheegay ay dhex maraan magacyadooda buugagtaas la qoray 10 sane ugu dambeeyey ay qoray maxamed cabdi daawud iyo cabdirasaaq caqli qudhooda waxaa ku jirta in uu طبعا وخرافات ويان wax maaragtay xataa la rumaysan kara ma aha diiniyana qalad ma ah in sheekh saxaaq oo mayd jooga nin u yimi dabeedna uu u sheegay inuu mahdiga la sheegayo ee soo bixi doona inuu caruurta sheekha kasoo dhex baxayo dadka qaarkood markaa sheekh wuxuu barigaa sheegay ayuu buugaa buugagta ku qoran in marka sirta sheekha lasoo saarayo sheekhu maadaama sayid ahaa oo dadka qof gaar ahaa laakiin isqarinayay maalinta sirtiisu ay soo bixi doonto sayidnimadiisu ay caddaan doonto maalintaasna barwaaqan iman doonto adduunka oo dhamina uu ictiraafi doono qiimahooda iyo weynidooda iyo waxay yihiin sheekooyin noocaas marka waxaad moodaysaa dedejinta in lasoo dedejiyo yowmal qiyaamihii si markaa loo aqoonsado dadka qiimahoodii waxaasoo kale ay meesha ku hoos jireen nooc وأفكار أنا شيعة قول ما أمسني شيعة إيو كريستيان كإيو يهود إيو حتى السنة هو أمسني وحيالا نوعا وكلاها دو حنا كتير كلام إلهي بعد دوتي إلهي في الأجزاء ورب ولا سمعين كلام وإسلام في النبي عيسى صلى الله عليه وسلم هاي المهدي المصبح يبقى أمسني هاي المهدي قاعد بالشيعة وش تحت سنتها وقت وحكوا قرآن عبد داود يا قرآن يعني طب الساعة عليه oo ay sheeko iyaguna ay kasoo xiganayaan waraaq baqdaad laga keenay ay xiganayaan quraanku aad ugu qoran yahay in markaa maaragtay uu mahdigu halkan kasoo bixi doono faamilka dhexdiisa kasoo bixi doono waa ila taraata sheekadu halkaas uma soconin laakiin maadaama oo waqtigan ay dadaas soo baxday waxaan rabaa inaan idin akhriyo maansada oo iyadu runtii aan mawduucaas si gaar ugu saabsanin laakiin aad u xusaysa meelo badan ka xusaysa markaan idin akhriyo sheekaduna waxa weeyaan wiil iyo gabadh baa kulmaya wiilka iyo gabadhu way sheekaysanayaan gabadhu waxay rabtaa inay ogaato ninkan haybtiisa ama identitygiisa isaguna wuxuu rabaa inuu isku sheego wuxuu aaminsan yahay iyo aragtidiisa in uu isku barayaan iyadoo laakiin waxay rabtaa in faamilkiisa ay u sheego وشكرا دير اسكا دقيست ان شاء الله horta adugayata inaan iyo baraa inan iyo baraa inan is-aqoonsi maagani iswaraysi yeesheen unugeeda sheekada inantaa bilowdaye waxay tidhi igaar yahow
horta adigu yaa tahay af soomaaligana waad iska baranaysaan eryo badan oo kala lahjadaabaa ka buuxa kaa waad ka faa'iidaysanaysaa insha allah inan iyo baraa'inan is-aqoonsi maagani iswaraysi yeesheen unugeeda sheekada inantaa bilowdaye waxay tidhi igaar yahow horta adigu yaa tahay isagina wuxuu yidhi bini aadan baan ahay meeshaas daru rabaa inuu barto kute ogore sheekadu aadame ma joogtee oogada dushaadaan ka arkaa madowgii afrikaan yaa tahay mise eshiyaa tahay aborjiniyiintii ustareeli laga dhacay ma abbaad wadaagtaan ma ameerikaankaas la addoonsadaa tahay horta adigu yaa tahay kuwii ina adeeray afrikaan madoowo lagu uumay geeskoo abtirsiinta sii mara carabtii ismaaciil ilaahay ka beeree ku aroortay baabuli iyo nebi ibraahim asalkaygu weeyaan eegadan la joogana orobada midowdiyo nin isu dhishaan ah markaa markaas ku sheegay afrikaan iyo eshiyaan iyo yurubiyaan saddex xaaladood kala duwan wey kute ogore soo dhaaf waa ogor waayo erey ogortu waa halay erey yaabkaa lagaga jawaaba kute ogore soo dhaaf afrikaan in aad tahay marna eshiyaan tahay marna oroba aad tahay ama kaag la yaab liyo inay tahay afkalaqaad adba waad ogsoontii asalkaa muhiimiye horta adigu yaa tahay kuwii ina adeere adna ha is-alhoomin intixaan ha isgelin adna oo dahayro markaan sheegtay eshiya oroba iyo meel kale ama kaagii kugu dhacay yuu sii adkaanaya waxaan hay ogaanteed ma awoodi karaysidee maad ayegati halkaas lagu daayay bini aadan baan ahay afrikaan baan ahay halkaas waa saa aad u badantiin intiina badan marka ayadaan de faamilka la joogin kute aado marka erey walaaloo kale ka dhigan oo dhinaca galbeedka luqadda dhulka soomaalida laga isticmaalo kute aado ina yahow waxba ha is adkaynaya anigaa u baahan asalkaaga ii sheeg afrikaanka gees bari ku abuuray mowluhu 40 qolo aad uga badan yahay horta adigu yaa tahay ragaa baad sheegatay gees bari baad sheegatay laakiin gees bari 40 way ka badan yihiin 140 qolo ayaa degani dee isu kay sheeg ma amxaaradaa tahay mise abaridaa tahay mise uunkan mise oromadaa tahay mise uunkan kenya ugaamayaa tahay eritrea caleeniyo cafar iyo agaw iyo ma uraagadaa tahay horta adigu yaa tahay halkaasuu yar xanaaqay markaasoo waxay sheegi weyday soomaali way kusoo dari weyday magacyadii ay xustay ee tusaalaha ahaa kuwii anigu yaabaye intaad sheegtay anigoon midna erey xun odhanayn cidda aad ilowdee alla geeska bariyee ku abuuray kelidood soomaali baan ahay siduu yidhi abwaan hore sanku neefle ma ogoli inuu iga sarrayn karo marka uu soo yara dhibcay kute ogore wiil yahow soomaali idilkee umad keliya maahee waa uuman badanoo 4 dowladood iyo 42 kalis arrinkooda sheegtee horta adigu yaata macnaha waa dowlado iyo talisyo fara badan oo ka hoos jira ayaaba sheegto wax maanta isugu jira maba jirtee is-sheeg xagga dhinacaad ka soo jeeda kuyina alhuumay tani imika itixaan buu inta ku sheegay itixaan baa tahay buuri kuyina alhuumoy waa adigani ururshee igu ooday xeradee haddii aad islaam tahay ereygaas ha ii balin isagu weli wuxuu isleeyahay siyar qarqariyo halkaa bal hata haddii bini aadankii lagaa keenayo afrikaankii haddana lagu keenayo geeska afrika lagaa keenay bal soomaaliha soo dhaafin halkaa ha kuu joogto laakiin inantu ma joogto meel bay ku socotaa kute aw isqariyow anaa soo ogaano astaantaada qarankiyo unugaaga sheegayay waxba aaga taliskiyo calan iyo astaan iyo ururada hadiidini horta adigu yaa tahay
warniyo ishe soomaalina ha ku meeraysano soomaali waa abtirsiimo sheegto odayaal ka badan boqol kusii kala arooreen horta adigu yaata haddaba meesha u socoto waad garataa abtirsiintii rabta inay gasho kuyanaalhuumoy ku arkoo ku eegoo fahma ereyadaadii ii diiday aadami afrikaankii kula baday soomaali ma ogolid anigana i oodo igu awday geeso waadigan i ururshe soomaali idilkood ehelkayga weeyo waxaan uga arooraa irirka iyo daarood waa qabiilooyin waaweyn oo soomaalida ka mid ah unugooda hooso ab samaali weeyaan halkanku intigooda halkaasaan ku dhammaada somaalan ku dhammaada halkaas odayaashaasan xagga hore ka galaa wukii yaad igu asqoobine waxaan ahay ogaanteed ma awoodi karaysidee ama kaagii kugu dhacay yuu sii adkaaninimaad ayarigti kutawaarigaar yahow ina igarihiisula ayaad ila eegtay marka ina igari waxa runtii iska hadlow ina igari marka waad iska hadlaysaa bay tiri waxaana ku hadlaysaa cilmi ma aha bay tiri kutawaarigaar yahow ina igarihiisula ayaad ila eegteen firirka iyo daaro kuma wada aroortid uur dumar wixii galay waa ammaano magano ragilaashanayo abtirsiin ma raacee odaygaa muhiim horta aduu yahay labadan qabiil ma wada geli kartid oo aba kala nooca laga yaabaa inaad midna islaamta hooyada ka timi midna aabbo hooye laakiin muhiim maaha hooyadu hooye ma rabe ee aabbahan rabaa bay tiri kuye adigu marka isagu maxay ku tiri waxay ku tiri inay iga raa tahay macnaha waa iska hadlo inay iga raa tahay isna wuxuu ku yidhi kuye adigu waxa tahay arraweeladiisula inaan raga kadeeday iga diiday aadami afrikaankii kula baday soomaali ma ogolin ehelka iyo daaro in aan wada ahaan karo arkoo kuma anfacaye aan sukaa sheega marka ninku wuxuu ahaa bani haashim ka sho wuxuu yidhi isxaaqa sheekhii laba aabba sheegtee afrikaan markuu yahay abtir mahadir soo gala marka waa isxaaqii markaasaan gala laakiin laba aabbo ayuu sheegtaa oo dhex taagan isxaaqa sheekhii laba aabba sheegtee afrikaan markuu yahay abtir mahadir soo gala marka waa tiyoriyada mid ka mid a oo sheegaya mahadir inaan mariyey iyo door allow mahadir iyo sheega waa sayid maxamed baa hadalkaa lahaa afrikaan markuu yahay abtir mahadir soo gala marka kalena awliyo arladii ciraaqiyo samaraa ka imato xijaas aagageedii samaraa marka magaalo ka mid a dhulka ciraaq oo ay ku aasan yihiin taban aalubeydkaa hore xabaalooda ku yaalaan arladii ciraaqiyo samaraa ka imato xijaas aagageediyo yaman ubad ku yeesho badda aad arkaysaan agabkii salaadiyo masale u adeegsan ninkan mucjiso iyuu ahaa awoogani marka uu aabbaha xaggaa ka dhalanayo xaggana marba ku dhashay xaggana marba ku dhashay marka xaggaa ku dhashay siduu xaggan ku yimi baa isweydiin le badda uga soo tallaaba masallahan salaada lagu tukado ayuuma badda soo saartay soo sirixday marka caadi bay xagga kale usoo timi yaman ubad ku yeesho badda aad arkaysaan agabkii salaada iyo masale u adeegsan wuxuu soo abraaraba markuu awdal soo galay sayrac buu yimi ka abuuray noloshee ololaha shareecada aada ugu fidiyee adar iyo mayrbari uwad ugu beermaan ahay warasadiis taasuu ku yidhi yaad igu asqoobini waxaan ahay ogaanteed ma awoodi karaysidi ama kaagii kugu dhacayuu sii adkaanimaad ayriga tegi kute adigu waxa tahay oday biiqihii sulaa ka adkaaday dumarkii waayo wuxuu ku yidhi arraweelaa tahay soo kuma odhan iyadana waxay ka dambaqaysaa oday biiqii ee arraweelo ka fakaday inaad tahay kute adigu waxa tahay oday biiqihii sulaa ka adkaaday dumarkee tani waa amuur culus laba aabbo ruux gala adiga u horreeyee marka hadday sheeka xariiradii bay soo xasuusatay sheekooyinkii ratabalad odaygan sheekooyinkaa ka maqashay waxay tiri odaygan labada aabba dhaleen odaygani makiiba aw yuusuf kaynuun ka awaaray talantee ugxantii ka qubatee dabeed ugu abaalguday ehelini noqdaano ubadkiisu weligii sidaa aabbahoodaas ay u adeegaan marka waxay sheeka xariir baa jirta odhanaysa sheekh saxaaq iyo sheekh yuusuf kaynuun baa waxay ku kulmeen dhulka meel ka mida marka markii hore waxa soo horreyay sheekh yuusuf kaynuun dabadeedna way iskaraameeyeen
karaamadaasina waxa ay ku saabsaneyd bun ayay ahayd bun malaa la saloolin saan saloolin bunka markaa waxa jira marxalada aan afka la gelin noqonin tiibu markaa uu Yuusuf Kaynuun iligga ku qabtay markuu gowska ku qabtay oo qac ka siiyey ayaa waxa ku dhacday in shahwadiisa ay dhulka ku dhacday haddii shahwada dhulka ku dhacdana calaamadaas waxay ka dhigan tahay inaad goblamayso oo carruur lahayn dabeedna waa ka karaamiyey buuda sheekh Yuusuf Kaynuun waa ka ila helay karaamadii macnaheedu markaa sheekh Saxaaq wuxuu ku yidhi okay iska raalli ahow ubadkayga ayaa ubadkayga kuu noqonay marka waxay yidhahdeen halka siyaarada la siyaarto oo maaragtay wax loo soo maaragtay calabari loo sameeyo halkaasay kasoo jeeda inantu waxay leedahay sheekadaasi maqasho odaygani makiiba aw Yuusuf Kaynuun ka awaaday tarantee waxantii ka qubatee dabeed ugu abaalguday ehel inay noqdaano ubadkiisu weligii sida aabbahoodaas ay ugu adeegaan odaygani makiiba ubadkiisa ku xukumay aw Yuusuf Kaynuun abid inay ka bixiyaan diyadaad ogsoonay diyade markuu buurta ku arjumay awbucur bacayrkii ajashiisa lagu qoray eedii habaar halkaas waxa weeye sheekada ku jirtaa sheekada inantani maqashay waxaa la yidhi aw Yuusuf Kaynuun iyo waxa is karaameeyey nin la odhan jiray bucur bacayr marka bucur bacayr dadka qaarkood imika waxay yidhahdeen maya sheekh khaliifa la odhan jiray isagaaba sheekha diinta meesha keenay waa propaganda iyo dacayad beelaha laga faafiyey laakiin sheekada la hayaa waxay ahayd inantan iyadu maqashay oo bucur bacayrna uu ahaa nin awgeedi shaambow oo kale ah oo kufsan jiray dumarka maaragtay adigu dadka dhibaato badan ku hayn jiray boqorna ahaa dabeedna Yuusuf Kaynuun bay iskaraameeyey sixirkan uu yaqaan markaa Yuusuf Kaynuun baa ku yidhi bucur bacayr buurtaas baan ka baxaya xagaa uga baxaya adna ma ka bixi kartaa bal ka baxa buurtii buu bucur bacayr ka baxay intuusaa u galay buu dhinaca kale uga baxa ka dusay Yuusuf Kaynuun wuxuu ku yidhi mar labaad iigu celi hadda marka hore way istaagteen aw Yuusuf baa markaa ku celiyey waxaan jeeda bucur bacayr baa mar labaad si buurtii ka dusadana dabeedna markii buurtii dhex marayay ayuu habaaro wuxuu ku yidhi qudiya ardullah buurtii baa qabatay halkiiba ku dhintay baa bucur bacayr laakiin magtii baa loo qabsan magtiina mau bixin kara waxa la yidhi kala dooro marka ehelkii ninkii bucur bacayr waxaa laba kala doorta inaad magta u qaadataan harta iyo inaad weligiin qaadataan marka waxay dhahan waxaan doorana inaan weligiiga qaadano aroos kastana aan ka qaadano wax wiilka soo cusana wax ka qaadano sheekadaasi oo sheeko xariira dabcan ayay gabadhu maqashay marka waxay tiri odaygani makiiba ubadkiisa ku xukumay aw Yuusuf Kaynuun abid inay ka bixiyaan diyada ogsoonay markuu buurta ku arjumay aw bucur bacayrkii ajashiisa lagu qoray eedii habaar odaygani makiiba beri adari joogay markuu aadi rabay maydh sidii aaladii nebi isra iyo micraajkii amranow buraaqii adinkiisa dhigi jiray ishuu meesha gaadho buwaagtaan idiin sheegay sanadkan soo baxdo oritonkii sana soo baxday mid ka mida ayaa waxa ku qoran inuu markuu adari ka tegey oo ku socday maydh uu markuu de lugta uu dhigayo maxaan kura meesha hadee waxa lagu socdo bilaa loo kala socon lahaa labadaas magaalo laakiin waqtiyar buu u kala socday sababtuna maxay ahayd markuu yacni lugtiisa wuxuu dhigayay dee meesha ay indhihiisu gaadhaan de buurtima adigu sidii sheekadii buraaqa ma garanaysa buraaqa qisadii isra wal micraaj oo kale ayay ku mataaleen marka waxay tiri odayga ma ninkii caynkaasi la yaabka lahaaba odaygani makiiba qabiil laba islaamood oo mid Itoobiya asal ay ku leedahay waa sheekooyinka markaa Soomaalidu ay aaminsan waana taasoo kale way u badan tahay inkastoo markii dambe si ay arrinta shariifnimadu u hirgasho oo ay sax u noqoto ilaan qofka haddii la doonayo in laga waa sayid waa saado wax ka dhalanaysa saadadu inay xukunkana iyagu qabsadaan weligood hayaan sheekooyin qis badan waa ka dhacay markaa xataa imanka oo islaan saddexaad baa dhalatay baa layidhi maaragtay islaan saddexaad nuuri jirtay baa layidhi oo iyaduna carruur dhashay oon magaalo iyo xabusho ahayd oo iska sheeka xariirka markastoo la samay Soomaali way sii mar walba waxaa la sii samayn karayaan wala wuxuu yidhi odaygani makiiba weli inantu laakiin labadaas un bay haysay iyadu warka dama may hayn odaygani makiiba qabiil laba islaamood oo mid Itoobiya asal ay ku leedahay odaygani makiiba inamada mataanu markay ooridiisii uurkii ku raageen ku akriyay qur-aankee gacmihii mid la arkay si loo kala aqoonsado amuur kaatunkiisii uga dhigay astaanta
وإذا ما حكى مقاش الشيكة odayga islaantiisa baa foolatay mataanii sidii 2 wiil bay sidii 2dii wiil baa hore u dhalin waayay odaygii baa loo yeedhay waxay kaalay islaantii waa dhali weydiyey qur-aanku akhriyo wuu duceeyo qur-aan buu ku akhriyo kaa 2dii inan baa mid ahaan gacan uu soo dhalan gaadho gacan buu soo horreysiiyey dabeedna gacantii kaatun uu sheeku lahaayo da'an xun ayuu gacanta u geliyey dabeedna kii yaraabaa gacantii baa noqotay dabeedna ilmo kalaa dhashay ilmo aan kaatunkii wadan haddana muddo ka bacdi baa wax dhashay mid kale kaa dambe ayaa ahaa kii gacanta soo hor saaray oo kaatunka lahaa waa qisa iyaduna qisadaana way maqashay iyadu qisadan kalaa ka daran waxay tihi odaygani makiiba isagoo abraar jira markii ooridiisii umushii horteediyo uurkii ku dhimatee lagu aasay ciidda ayaantii dambuu yimid amre inay faqaanee iilka ugu tegay wiil ibta malab dhurdeedkiyo ku anqaraya caano afka suulka kula jira dabadeed ayaan liyo awal ugu wanqalaye aad buu la taxajo wadana waxaa la yidhi odaygu sheekhu isaga oo safar buu galay islaantiisina waxay ahayd fool xageen dhigaa bay ahayd oo markaas uurku waa buuxay dabadeedna odaygii oo maqan ayay islaamtii halkii laga sugay inay dhasho way dhimatay marka iyadii ilmihiiba waa la isku aasay sheekhii baa muddo ka bacdigii wuxuu yidhi maxaa ii dhashay waxa la yidhi alla yaa raxmo islaamta waa dhimatay oo maxay dhashay waxba may dhalin dee waan isku aasnay waa xabaasha faqa buu yidhi dee ninkan waa nin amrana war buu hayaa iyagu dee say aaminsan yihiin war la yaab luu hayaayo dee wuxuu ogyahay in meeshan wax ka soo socdaa meeshii baa la qoday xabaashii baa la tegey waxaa loogu tegey wiil yar oo sho markii islaamtu dhimatay baa dhashay oo fadhiya oo labada suul midna malab ka shaqeeya midna caana ka shaqeeya cankaasaa inankii yaraa sidii uu ku dhashay marka ayaan la loo bixiyey baa layidhi marka waxay inantu way maqashay sheekadaas tv wajibninku malinkaasta aan kala ogaadee odaygaa la yaab kale markuu inan carbeed yahay markuu carabka yahay waa markuu dirka yahay ma markuu inan carbeed yahay ciisaha adowgood qabiilka ciisaha la yidhaha awowgood ma abowihiisa markaasuu la waariyahay axmed baana wada dhalay oo waa labaduba waa bini axmed markaasa sheekadaas ii saxday tiri inankii waa kan la kusoo noqday inantii wuxuu ku weri kuyanaa inkaari yahay arraweele yahay baas waxaan aad akhriyaysaa waa sheeke abadkiyo lagu seexsho ubadkoo asal lagu rumaysto aada kuma salaysne oo waa iska sheeke xariiri maad inta waxaa igu wareerinayso sheekooyinka sheeke xariirta igu qasayso maad aqoomahaygiyo iga toyetid inan yahay aaminaadda diintiyo aragtida dhaqaaliyo agaasimidda noloshiyo sidan ugu arrimin laa aayaha dalkaygiyo guud ahaan adduunyada maad waxaa i weydiis hasaan dee karaya ayaan waxaa la jawaabi karaya ambiyadii fariimaha eebbahay xambaartee dunida bar iftiinshaan ka akhriyay qur-aankee ogaalkood ma jeceshahay kuwaas ma kaaga sheekay qisadii nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo halgankii nebi muuse iyo boqortooyadii nebi suleymaan waxaa maad iga weysatay wixii jiray aqoonyahan ifka raadad kaga tegey oonkood markuu hayaa kuwa qudhaguma aqaanaayo raggii adduunka raadka ku reebay falsafadaha keenay aad baan u aqaanaa maad odaygii ruusu waa john jack ruusu nin loo jiro faransiis ahaa falsafadan siyaasadda reer yurub ama reer galbeedka ama adduunka hadda ku socdo ninka dadka dhidibada u taagay ba fikirkiisu uu saldhigga u ahaa maad odaygii ruusu aadam ina ismiidhiyo oo aadam ismiidh isagoo aragtida siyaasadda dhaqaalaha marka maad odaygii ruusu aadam ina ismiidhiyo iman khaldun iyo ibnu khalduni marcus iyo angeles iyo aristotelkii hore ama dee aflaatoon aragtiyahay qaateen itiraahda sheegsheeg bal ma hadda raggaa tiraahda ka waran waan kaaga sheekayn lahaa waxa adduunka kusoo kordhiyeen iyo wixii lagu diiday iyo wixii ay maaragta dhib la kulmeen ibnu taymiya jiray mataqaani alqaasaali baa jiray isaga mataqaani imaam shaafica jiray albukhaari baa jiray dhaxalkay asteeyeen ninka ku intifaacay aadka u yaqaaneen is-amiirin ba waxaasoo ninkan akhriyey haddana caadi ayaan iska dhigaa maad madiga weysad marka ay adkaatee la afaysta jirahe awoodda isu sheegtana axmed guriba waa shan axmed guri soo garanaysa asxaabihiina
ما كو أخريتاس سير كما مدراد إيجا شاكي سي الله فالتماء الدنك arrimaha colaadaha buuggii adduunyada abid ugu horreeyey oday saantu soo qoray ninka soo akhriyey is ammaanin baa saantu soo garanaysa oo nin Chinese oo dhowr kun oo sano ka hor buug ugu weyn ugu horreeya ee laga qoray farshaxanka dagaalka iyo kaartooyinka dagaalka ninka qoray waa la art of war ama fanul harb ninka qoray wey waa dhowr kun oo sano ka hor ay buugga qoray luqado badan baa loo turjumay xitaa Soomaaliga waa loo turjumay marka arrimaha colaadaha buuggii adduunyada abid ugu horreeyey oday saantu soo qoray ninka soo akhriyeen is ammaanin baa maad abwaanadeeniyo erayaday tiraadeen inaan kala ablayn karo igu eegti tamarta bal hadda maataa iga wareysid inaan yahay sidee tahay abirsiimo waa maxay midab ogo waa maxay dhulka laygu uumiyo asal iyo dal waa maxay nin inaan ahaadiyo naag inaad ahaatiyo sida eebba naga dhigay ma awoodaheenna waxaas minagu waxaynu shaqo ku leenahayba haddaad doontay kaan ahay aragtida i weydii aqoontay i weydii waxaan aadamaa taray ama uurku rabi laa inaan koonka ku ayido wa ahaanshahayge inaha i weydii sidaasay inantii ku kala joogsadeen oo doodoodii ay meesha adag ugu dhammaatay isaguna halka ay weydiin iyaduna way sheegatay wixii ay rabtay halka qisada guud ahaanna waxaa ku jirta waxyaalaha aan marka hadda maasadaas idinku sheegayay kala duwan marka laga reebo the identity crisiska bulshadeena ku dhex jira marka laga reebo haddana waxaa ku jira macluumaadka iyo culumta bulshada dhex taala inay kala noocyood kala heerar tahay qaar baa diiniya sida qisaskan ambiyada ka sheekeynay qaar baa falsafad adduunye ah sida kuwa odayaasha Aristoteles Rousseau iyo Ibn Khaldun iyo waxay ka sheekeynayaan oo si adduunka loo maamulayo ay aad ula xiriiraan qaarkood baa culture kala xiriiray dhaqanka qaarkood baa ah maaweelo iyo sheeko xariir oo dadku sida ay u fikirayeen waqtiyada qaarkood ayay ka sheekeynaysaa oo waxyaalaha ay isku maaweeliyaan waxyaalaha ay isku cabsi geliyaan ayay ku saabsan tahay laakiin manfac rasmiya oo ma laha maxaan ku dhahdaa aakhiro iyo mid adduun iyo midna male laakiin waxay leedahay luqad baa ku jirta maaweelaa ku jirta waxyaala noocaas oo kale ku jira xataa waxaa ku jira taariikhda marka la baarayo taariikhda dhaqanka marka la baarayo waxaan oo kale oo muhiim in la diiwaangeliyo sheekooyinkan iminka cajiibka ah dadkan wada duulaya dadka masalaha ku tallaabaya oo waxyaala la aaminsanaa waqtiyada ka mid ah laakiin samaanta aan la aaminsanayn isiradan iswada jiiraya ee labada nin arrimaha qaarkood waa inaad ogaataan mararka qaarkood arrin taariikheedna maaha arrin diineedna maaha waa arrin siyaasadeed mararka qaarkood arrin caadi iska siyaasadeed weeye oo maaragtay dadka qaarkoodna inay yidhaahdaan maaragtay cidaasaan unahay kulna intaasaan una yidhaahdaan waa conflictiga siyaasadda jira unbay qayb ka mid noqonaysa mararka qaarkood baa xataa waxa arrimo badan oo diinta ku ekaysiiyaan ay diin ahayn ay siyaasad tahay arrimo badan oo taariikh loo egaysa aanay taariikh ahayn laakiin ay siyaasad tahay waxaasoo dhan marka in la barto oo carruurta iskuullada loogu dhigo oo laakiin loo kala sheego la dhaqano waa sheeko xariir tanina waa kutubiya oo wax diinta kasoo jeeda tanina waa falsafad isbedeli karta waqtiga iska bedeli karta waxyaalaha in lagu sheegay waa muhiim intaasaan rabay inaan idinla wadaago aad iyo aad baan mahadsantihi